bismillaahi raxmaani raxiim anigoo ah gudoomiyaha dalada guud ee ra'iisul jamhuuriyadda Soomaaliland ee midnimo waxaan maanta halkan aan waxa weeyaan shirka jaraa'id waxa weeyaan ugu talagalnay inaan ka warbixino barnaamijka ururka dalada waxa weeyaan u yaala kaas waxa weeyaan daladan loo abuuray sidii wax uga qaban lahayd baahiyaha asaasiga ee waxa weeyaan ra'iisul jamhuuriyadda Soomaaliland waxa weeyaan qabaan jamhuuriyadda Soomaaliland waxa jira waxa weeyaan 500 oo ra'iisul ayaa jira 6 gobol ee dalka waxaana ka shaqeeya 4500 oo inan oo muwaadiniin ayaa waxa weeyaan ka shaqeeya nimanka waxa haysta caqabado badan oo waxa weeyaan dadka ajaanibka waxa weeyaan ku soo galeen waxaana ku tiirsan 10,000 oo qoys oo waxa weeyaan waxbarashadooda haday noqoto caafimaadkooda haday noqoto dhamaantood waxa weeyaan ku sabalgareeya waa la garan karaa marka ninka waxa weeyaan dhaqaalihiisa loogu yimaado amba waxa weeyaan lagu soo fargeliyo dhibaatooyinka waxa weeyaan ka dhalanaya amba qoys burbur ha noqoto amba dhaqaale burbur ha noqoto waxa weeyaan waa la garan karaa jamhuuriyadda Soomaaliland waxa filaya waxa weeyaan dawladii hore ee waxa weeyaan iminka waxa weeyaan xilka wareejiyay waxay ku guul dareysteen in dhibaatooyinka waaweyn ee ganacsatada ra'iislayaashu waxa weeyaan ay qabaan inay waxa weeyaan inay wax ka qabtaan wayna ku guul dareysteen ma filaya dhamaantood wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda waxbarashaduna way ku guul dareysatay sidii waxa weeyaan ay ugu sameyn lahayd tababarada caafimaadka intuba labada wasaaradoodna waxa filaya in waxa weeyaan ku guul dareysteen wax qabashadii iyo waajibaadkii waxa weeyaan ay kala haayeen xukuumadaha horena waxa weeyaan ganacsigaasi waxa weeyaan maadaama ururku ay yihiin waxa weeyaan ganacsatadu waxa weeyaan cashuur bixiyaal waxay xaq u leeyihiin in la difaaco waxa weeyaan danahooga waan inama yarba waxa weeyaan xirfada waxa ku shaqeysta waxaan ugu talagalay in maxadada in loo dhiso waxa weeyaan iskuuladii farsamada gacanta ee ra'iislayaasha maanta waxa weeyaan wasaaradda ka howlgalaysa amba wasaaradda waxa weeyaan u soo jeeda oo la waxa weeyaan war aan waxa wax ka qabano midna habeeraatay ma jirto waxa kaliya ay furi kari waayeen baalku kuwan anagu aanu sameeyay dugsiga aanu ka dhiganay wasiirka kamid ah jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa xadhiga ka jari kari waayay maadaama aan waxa weeyaan ay yihiin ra'iislayaal dugsigaasi taasina waxa filay waxa weey arrimaha waxa dadku ku kala tagaan waxa weeyaan qaranku uu ku burburo weeye madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan u soo jeedinaynaa war xirfadlayaasha waa kuwa ku dhiiranaysay ee adleed waxa weeyaan waxbaan ka qabanaya ee waxa weeyaan adleed waxa weeyaan waxbaan waxa uu qabanaya maanta waxa laga fadhiya sidii xukuumadii hore ayna ugu guul dareysan farsamo yaqaaninta in waxa weeyaan ku guul dareystaan adigana ilaahay waxaan kaga rajaynaa kii ku guuleysta ee wax ka qabta inaad noqotid waxa weeyaan farsamo yaqaan jamhuuriyadda Soomaaliland oo aad waxa weeyaan si xooga waxa weeyaan aad u saartid waxa weeyaan awood waxa weeyaan ay leeyihiin wixii muwaadiniin waxa weeyaan xaq u leeyihiin in waxa weeyaan la siiyo maadaama dastuurku uu dalku tilmaamayo in war wax laga qaban in waxa weeyaan shaqo ayna qaban karin shaqadu qaban kara muwaadin inuu qaban karin ninka waxa weeyaan ajaanibkii waa dastuurka sidiisa loogu dhaqmo oo sidiisa waxa weeyaan sharciyadu ha u shaqeyso oo waxa weeyaan qof walba waxa weeyaan marka lagu qanciyo waxa weeyaan marka lagu qanciyo waxa weeyaan natiijadu waxa weeyaan u leeyahay ayuu waxa weeyaan qof walba qadiya qof walba cadaalada ayaa waxa weeyaan deeqda waa dadka muwaadiniinta jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan leeyahay war kuwa door waxa weeyaan door bida kama muwaadinka ah ee dantiina iyo aragtidiina iyo muuqiina inta waxa weeyaan garanaya war inaga oo muslimiina ayaa loo xireeyaa waxa weeyaan dumarkeena loo xireeyaa ragga ayaa dhagaha loo dirooliyaa war caasimadda Hargeysa yaa wax ka og cid walba waxa weeyaan waanu gaarsiinay cid walba waxa weeyaan way ogtahay marka waxa loo baahan yahay inay waxa weeyaan inay wax ka qabtaan dhibaatooyinka badan waxa weeyaan soo sheegnay bismillahir rahmaanir rahiim alxamdulillahi rabbil caalamiin allahumma salli ala sayidina nabiyina maxamed sida uu gudoomiyuhu sheegay maanta waxaan halkan kaga hadlaynaa caqabooyinka hor yaalla maanta muwaadiniinta u dhalatay Soomaaliland ee farsamada gacanta aan kaga shaqeysta ra'iislayaasha caqabad weyn baa horta soo hortaagnaatay oo maanta ummad dhalo muwaadiniina oo maanta dhulkoodii loogu yimid oo maanta haddana la barakicinayo Soomaaliland koor maanta kuma inaan arag caalamka kale ku arkimaysnin ajaanib oo nin kale oo muwaadina barakicinaya barakicii ugu weynaa maanta wuxuu ka taagan yahay Soomaaliland waxaana ugu wacan dawladda maanta joogta amba tii horeba ha ahaatee amba tan imika cusub ha ahaatee inay wax ka qabataan anagu maanta doonaynaa oo ummadda maanta halkaa ku wada dhibaataysan nin walba ajaanib baa la dulkeen maanta xitaa guriyay ku jireen baa la dulkeen oo la leeyahay ka bax wax la gelinaya nin ajaanibe taasina da muwaadiniinimo maaha madaxweynaha maanta jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi wuxuu maalintii uu ballan qaaday uu la kulmayay beelweyntan maxayday dawadaag ama beelahan gabooye inuu farsamada gacanta hirgelin doono farsamadii gacanta maanta wax horta lagu harsanaa oo quri waxa weeyaan ra'iisliina maanta uu ka baxaya maanta inta 400 oo kun dad ka badan baa ku nool maanta ummadaasi tiyo wadanka wada basaareed ka taagantay amba maxayda sixir bararu ka taagan yahay intaasina inay maanta si barakacda laga yaaba haddii aan wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshadu aanay tallaabo degdega aanay maanta ka soo saarin ummadaas way barakacaysaa mas'uuliyaddeeduna wuxuu saaran yahay xukuumadda iyo madaxweynaha maanta xilka loo saaray
ayuu saaran yahay xilkeedu waxaanu annagu geed dheer iyo geed gaaban iyo dhawaaq dheerba caalamka iyo meel walba aanu gaarsiinaynaa waar ummaddaasi maanta way barakacaysaayoo dad ajaanibaa barakicinayee waar waxa laga qabto oo ummaddaasi intaasoo qoys baa ku nool oo amba iskuul ha noqoto amba caafimaad ha noqoto ama waxbarasho ha noqoto dee intaasaa laga masruufaa maanta kabooleel baan lahayno kaboole maanta waddanka kama jiro birtumaan lahayno birtimana maanta kama jiro xifradda qudha ee maanta dalkii ku hadhay waa ra'iisleh waa ra'iisliina ajaanib baa la keeno waddankii la keenee waar intanna de maanta ha la yidhahdaa dalka ka baxa maanta intaanu kaariyoonno iyo de maxeeda alaabtaa abka ku qornano halkaa ka bixi haddii aan tallaabo aanay wasaaradda qoyska iyo arrimaha shaqadu maanta tallaabo ka cad aanay ka soo saaran oo aanay ummadda ajaanibka dalka ka joojinaanba muwaadinka aan shaqadii la siiyey uu lahaa aan looga joogsanin dee ummaddaasi way ka barakacaysaa oo intaasina way hadhi doontaa iminka inta inan ee tahriibtay ee baddaa ku dhimatay xadad ma leh markay meelay ka shaqayso waayo aqalkii uu ku jiray ayaa lagu dul keenayaa nin ajaanib oo lacag wato hay-adii lacag soo siisay isagaana lagu dul keenaya laleeyahay aqalkii ka bax waa intaasoo ra'iisle maanta ugu yaraan 200 oo ra'iisle Hargeysa way ka xidhmeen waxaana ka saaray dad ajaanib ah nin dhaqaalo wata oo dibadda ka yimid maanta intaa kale maanta ku hadhay nin tababar la siiya ama seminaar la siiya hay-adihii caafimaadka hay-adihii maxada waxbarashada waar inta badda xaq baan ugu leenahay in ummadda wax u qabto waa dadkii farsamayaqaanka ee dalkan u dhashay ee xaq ugu lahaa weeyaan intaasi midna wax ma eegto hadday caafimaad noqoto cid caafimaad tababar ma siiso waa ummaddiiba ku xidhan maanta ninka ajaanibka halkaa ka yimid wax kasta cudur qaba cid baa dhaama jirto intaas waanu soo qabanay annagu iskaashataan ku shaqeynayno soo qabanay qaar xanuun qaba oo aanu dawladda u keenay oo saldhigga koodbar ku soo xidhnay oo marageedu uu jooga cid allaale cid wax ka qabatayna ma jirto waar intan imika maanta ku hadhay haddaan lagu faraadeegano ummadda dawladdu maanta aanay waxba u qabanna intaasina way ka barakici baan leenahay madaxweynahana waxaan leenahay ballankii aad u qaaday ummaddan